waxaan ka wada hadalnay geedi socodka nabadda Soomaaliyeed waxaan ka wada hadalnay arrimaha nabadgelyada iyo amniga dalka waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo horumarinta iyo sida Soomaaliya hore u socon lahayd iyo arrimo runtii muhiim u ah waxaan ka hadalay ma jiraan runtii waxaan marnaa markuu dambeysay waxa ka soo wartay 6 bilood oo noo yimaado marka wixii isbedelay dalka ka dhacay ba ugu muhiimsanaa iyo muhiimadda ay leedahay federalismka iyo dastuurka iyo constitutionka wax walba kullu waa ka wada hadalay. And it's an important moment. You have a meeting of the federal member states through the CIC, which stands for the Council of Interstate Cooperation. That starts tomorrow in Baidoa, by good coincidence. And then there's the launch of the Constitutional Review coming up. We also discussed the security situation. I'm very happy to hear that the Galkayo peace agreement seems to be delivering real benefits for the local population. I'm concerned by tensions between Puntland and Somaliland when it comes to Tukarak. We discussed that, but also the importance of maintaining security throughout the country and here in Puntland, as well as the upcoming political processes, including the preparations for the 2020 elections, national elections, and of course Puntland has its own elections soon. So